wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu ka qayb galay shir madaxeedkii Midowga Afrika oo ka dhacay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya. madaxweynaha Soomaaliya waxaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dawladda Soomaaliya. wasiirka arrimaha dibadda dawladda Soomaaliya Mudane Axmed Ciise Cawad ayaa faahfaahin ka bixiyay safarkii madaxweynaha waxaana uu sheegay in uu guul ku soo dhamaaday. wasiir Cawad ayaa intaas ku daray in dawladda Soomaaliya ay taageersan tahay dib u habeynta lagu sameynayo ururka Midowga Afrika iyo qorshayaasha ku aadan mideynta suuqyada xorta ah ee Afrika. shirkii socdaalkii madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku tagay iyo wafdigiisa ay ku tageen magaalada Addis Ababa si ay uga qayb galaan shirka madaxda Afrikaanka shirweynahoodii 32 waxaa shirkaas ka horeeyay madaxweynaha tagidiisa Addis Ababa waxaa ka horeeyay tegid anigu aan tegay iyo wafdi la socda oo gogol xaaray shirka madaxweynayaasha madaxweynaha si aad ayaa loogu soo dhaweeyay Addis Ababa ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa soo dhaweeyay soo dhaweyn fiican na waa loo sameeyay ka bacdina markuu shirkii bilowday madaxweynuhu wuxuu ka jeediyay shirka dhowr khudbadood dhowr mar ayuu ka hadlay hadalkaas oo madaxdii meesha joogtay aad u jeclaysteen oo aad u soo dhaweeyeen kaalinta Soomaaliya ay ka galayso shirka madaxweynayaasha Afrikaanka. shirku wuxuu ku saabsanaa arrimo badan baa looga hadlay sanadkan. mowduuca shirku wuxuu ahaa la dagaalanka musuqmaasuqa. waxaa kaloo isaguna shirka mowduuca ugu weyn isaguna uu ahaa laakiin aan mowduuc soconaya isagoo aan sanad kaliya ku koobnayn wuxuu ahaa dib u hagaajinta iyo dib u habeynta ururka Midowga Afrika si loo tiigsado oo loo gaaro tiigsashada ama himilada Afrika ee 2063. Soomaaliya qayb fiican bay ka qaadatay doodaas. madaxweynuhu wuxuu ka sheegay golaha shirweynaha in Soomaaliya ay kaalintooda ka geli doonto la dagaalanka musuqmaasuqa ayna jirto xeer la dagaalanka musuqmaasuqa oo ay ansixiyeen golaha wasiirada. wuxuu kaloo madaxweynuhu tilmaamay in dawladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed ay taageersan yihiin qorshaha dib loogu hagaajinayo Midowga Afrika ee hogaaminayo madaxweyne Paul Kagame si loo gaaro hadafka iyo ujeedada ay Afrikaanku leeyihiin 2063. inta uu ku sugnaa madaxweyne Farmaajo dalka Itoobiya ayaa kulmo gaargaar ah wuxuu kula yeeshay madaxweynayaasha Djibouti, Suudaanta Koonfureed, Uganda, madaxweyne ku-xigeenka Burundi, ra'iisul wasaaraha Itoobiya, iyadoona shir madaxeedkii Soomaaliya ee Midowga Afrika ee halka ka dhacay inta badan diiradda lagu saaray xoojinta la dagaalanka musuqmaasuqa, argagixisada iyo dhibaatooyinka tahriibka iyo qodobo kale. Maxamed Yaxya Jiinow, SABC TV, Muqdisho.